isugu nimid culays yar oo ka dhaca saakay suuqbacaad oo ku saabsan ganacsatadii suuqbacaad oon u ahayn maamulku u ahayn oon guddoomiyaha u ahay saaka waxaa ka dhacay shaqaaqa oon la filaynin ganacsatadii iyo kambani isu sheegay inuu yahay ifiye la yidhaah maalmahan dhan waa la dhegaysanayay inay suuqa joogaan magaalada muqdishona ay ka shaqaynayeen laakiin qaabkay u shaqaynayaan qaabaan fahmi karna ma ahayn ayadoo cid ka warrata jirin ayaan saakay waxaan ka war helnay bakhaartii oo wada xirxiran dukaamankii oo wada xirxiran niman qufulla wataan oo dadkii ku dhex xiraayo oon ugu tagnay 3 qofood oo bakhaar hula inta lagu kor xiray iyagoo ku kor xiran ninna qoray loo istaagsanay wallaahi waxaas aadaan uga xumaanay wallaahi aadaan uga xumaanay marka la soo wacay oon tagana waxaan u tagay niman qoryasito oo ganacsatadii maharajadoodii ilida la taagan qoryo la taagan oo dhahayo keen $15 ama baqaarka xir warnay say wax u wadin maya ma ciidan la hadlayna male waxaan u baahnaa $15 ama baqaarka hal xiro wallaahi aadaan uga xunahay nin cashuur bixiye ah oo badeecadu dhex taal canshuurta lagu lahay dhiibay maxay tood shati hadday tahay dhiibay haddii wada dhistaha badeecadiisa laga soo qaaday oo wadada dhis la leeyahay lacagtii asaga laga soo qaaday lagu dhisay waxaan aad u xumaanahay canshuur bixiyaha qiimaha uu leeyahay dalalka ajnabiga markaan tagno waxaad moodaa in muqdisho in canshuur bixiyaha ugu liitaba maantay kama sugaynin dowladda in ay noo soo dirto ciidamo si ay qaasa shati uga soo qaatay ama ay u saxiixeen ay noo yimaadeen oo yidhaahdeen nadaafadda yaa qaabilsanahee lacag $15 bil walba tur kama sugayn saas waxa aanan anaga aqbali karin ayay nagu naqatay waxay imaadeen 3 jeer 2 jeer oo kamid ah horey u imaadeen way naga xireen dukaanka xir maxaad u baahan tahay $15 u baahan maxaad ugu qabatay waxba kuuma qabana dukaankan xir amba $15 dhiibayeen ugu dambeyn $15 ma dhiibi karaan dhahay dukaanka waa la xiray suuqley dhan ay wada yimideen dadka dhan dukaanka waa ka soo wada xireen hadday dukaanka wada xireen maalintii maanta hadda biriga la joogay imaadeen soo 3 naqteen dukaaminkii way wada xireen dad oo weliba xamaaliya oo baqaara xamaalay u yimideen ka soo baxay dhaheen war waa shaqaysan maxaa naga rabtaa hadii la yiri qunfil korba saareen neefta qaarkood ku dhigtay 3 nimay ahaayeen ugu dambeyn saaka waxaa loo yimiday niman hubaysan ciidana doonanaya dhaqaale aruursi ah haddaan la hadli maagan loo ceeriyada laba hadlimayn dadkii wixii mataqaanaa irid u fureena irdiyay ka xireen waxaan mataqaanaa waxuu ahay bannaanka shaah ku karsahayana mataqaanaa waxay yidhaheen shaqada joojiya kuwii baqaarada ku jiro xamaaliga ahayna waxay ku xireen baqaarada